gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ku sugan magaalada Burco ayaa kormeeray indhaindhayna ku soo maray goobaha isaaka sida tooska uga bilaabeen qaadashada kaadhka codbixinta doorashooyinka Somaliland markii ay kormeerkooda soo dhameysteen waxaana halkaas kula hadleen warbaahinta maanta waxay noo furmay dib u furistii diiwaangelinta 6 degmo oo kamid ah dalka Jamhuuriyadda Somaliland oo kala Burco Oodweyne Buuhoodle Caynaba Celaf Weyn iyo Garadag maanta buraan joognaa si fiican bay u bilaabantay intii aan soo maray ilaa 7 goobood baa saaka soo maray si fiican bay dadku hawsha wadeen goobahan soo marnayna way wada fiicnaayeen oo markaan weydiinay hawlwadeenadii waciladii ma jirin wala soo sheegay goobo kale oo ciladii ay ka jirtay laakiin kuwaan soo maray waxba kama jirin sida commissioner kaltuun sheegaysayna dadka maanta hawsha wadada waa arago gobol hore ka soo shaqeeyay waxaan ku guubaabinaynaa uun 6 degmo doorashada in dadku kaadhadka qaataan isdiiwaangeliyaan dadka loo ogol yahayna waa taa la idin sheegay waa dadkii qaan gaadhay doorashadii hore kadib dadkii aan markii hore qaadan kaadhka iyo dadkii intay 2 jeer codeeyeen kaadhka gubteen oo kaliya ayaa loo ogol yahay 4 cisho in isdiiwaangeliyaan dadka waxa kale oo jira 160 ka badan oo kaadh ba commissionka yaala kuwaana waxa commissionku cadeeyeen inay soo raacin doonaan marka kaadhka la bedelayo oo qofkii bariga hore aan qaadan kaadhka isna uu helayo kaadhkiisii digniintaana waa dadku qabaan oo qofkii markii hore isdiiwaangeliyay وأنا مر لبعض استوانجرين أما كاركي هايستو أما هكلمه وما بعنا نستوانجريو هادو كلمينا ولو بديل دونه وهنلاقي والله استوانجرية قف كسو حق ولا قان قاعدي وأنا فرصة ضايس كضيعين معلومه هنا ويري وافر عشرة وهي كمان شو كدر دونه يستجا هادو شيء دونه لكن وافر معلومات أفر تايان لضيعين كويدا قاركود ويراين مانتا لكن ما فيها إن هذا سبب حندون تنكو يدرها برعو دوانا لا ترتميا ترتك واقف يعني أنا بريور برعلق بدي ولا حناقة شيء يعني كبدين عبد الغني في التلفزيون كاستار مقالة برعو